السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورمانا قيارة السود وهذا إن شاء الله تعالى وحن ربنا هدو الله إدمو إن أن برنامج كان كو إجنو قد مانتا وجديي مدحويني دونالد جي ترامب وكجديي قولها لو دن يهي United Nations General Assembly أنت maanta khudbadiisii madaxweynaha hadaan ku bilaabo madaxweynaha ayaa dalka Mareykanka amaan kala dul dhacay oo sheegay in dalka Mareykanka sanad ka hor markii uu haystay Joe Biden dalkan uu dhibaato ku jiray cabsina uu ahaa hadda laakiinse 8 bilood inta administrationkiisa uu socday wuxuu sheegay in dalka meeshii ugu wanaagsanayd uu maraayo dalkanna uu noqday dalka ugu qatarsan the hardest country buu yiri wadanka ugu qatarsan adduunka oo la isku dilaayo in la wada imaado inuu dalka Mareykanka uu ka dhigay asaga ayaa amaan afkaaga kaagama horeyso ayaan maqli jiray madaxweynaha waa isugu dadaalay in uu is amaano sidaas la mid ah waxa uu sheegay in uu u qalmo in la siiyo Nobel Peace Prize oo uu keenay guulo fara badan uu ka gaaray heshiisyo badanna uu la galay dalal fara badan oo isdagaalayayna uu soo dhameystiray dagaalkoodii marka kii waxa u maleynaa Netanyahu oo ahaa waxaad u qalantaa madaxweyne in lagu siiyo Nobel Peace Prize-ka buurun u qaatay madaxweynaha wuxuu sheegay in qof walba uu leeyahay niyahow waxaad u qalantaa in lagu siiyo Nobel Peace Prize marka in lagu siiyay ahayd Peace Prize-ka sababtoo ah waa shaqaysatay hadii waxa uu sheegay kaliya conflictiga uu soo gabagabeyn waayay in uu yahay kan oo Ukraine ka socda madaxweynaha ayaa isaga amaan markuu iskala dul dhacay haddana dalka Mareykanka si fiican u amaanay wuxuu haddana u soo jeesaday UN-ta oo laba darbi kala booday UN-ta wuxuu sheegay in sababtii loo abuuray ay ahayd sabab wanaagsan oo hididiile fiican ay lahayd maaragtay baari ahaan ama jiritaan ahaan laakiin aysan ka faa'iideysanaynin waxa kaliya laga faa'iidaa buu yiri UN-ta inay warqado ay qorto empty ah warqadahaas ay qortana wax action ah ama talaabo ah oo ka dambeeyo ma jiro marka waxaan ku cambaareynayaa buu dhahay UN-ta in warqadaha ay qorayso ay yihiin empty words dalada ay qorto oo adagna hadii wax talaabo ah ka dambeeynin wax dagaal ah in aysan joojin karin arrimaha UN-ta badana ay ku dhaqaaqdo so wuxuu sheegay words ama erayo lagu hadlo ma joojinayaan dagaal socda kulay wuxuu ka uludan lahaa ruushka isaga ruushka naftiisa wuu ka hadlay waan gali doonaa haddii ilaahay idmo marka arrinkan ayuu UN-ta dusha ka saaray oo cambaareen buu dusha uga tuuray United Nationka nafteeda oo uu ku sheegay in ay tahay wax matare group inay yihiin isu imaaday sidaas si la mid ah madaxweynaha ayaa isagana waxa uu ku soo daray arrinka ruushka ayuu wuxuu ka sheegay in uu ka haysto habacsanaan fara badan wadamada reer Yurub wuxuu ku sheegay inuu habacsanaan fara badan uu ku hayo sababtoo ah wuxuu yiri wadan aad la dagaalaysaan oo aad NATO ahaan uga soo horjeedaan oo maaragtay idinka iyo ayaga uu dagaal idinka dhaxeeyo oo rabtaan in Ukraine ka saartaan sababaha la xiriira dagaalka Ukraine uu ku hayo oo reer Yurub oo dhan ama reer galbeedka ay ka soo wada horjeedaan wuxuu sheegay hadii aad gadataan buu yiri saliidda ruushka iyo oil and gas kooda ama energy products ka ay soo saaraan ruushka waxay taraysaa un kaliya inay waqti naga lumiso sababtoo ah ruushka wuxuu helayaa dhaqaale uu ku soo gato hub cusub dhaqaale wuxuu helayaa uu ku dhisto diyaaradihiisa iyo wixiisa iyo howlihiisa oo uu ku sii samaysto marka waxa uu sheegay in uu ka shaqeynayo in dawladda Mareykanka ay rabto in ay geliso wadamadan la macaamila ruushka inay cunaqabateen iyaga naftooda ku soo rogto oo ay saari doonto buu yiri hataa wadamada aan cunaqabateenta si toos loo saarin reer galbeedka ama reer Yurub u badan in wuxuu sheegay uu 100% oga dhigi doono canshuurta so wuxuu sheegay in hadii aad nimankan la dagaashantihiin oo xabad iyo dagaal iyo weerar oo idinka dhaxeeyo oo aad rabtaan in Ukraine ka saartaan gaaskoodina aad gadanaysaan buu yiri ama oilkoodii wax alaala wax ay soo kordhinayso arrinkaas ma jirto saacadan laga bilaabo wuxuu sheegay wuxuu rabaa in uu ka qaado talaabooyin adag wadanka ruushka cunaqabateena xoog badanna uu ku soo rogo inkasta oo uusan cadeynin cunaqabateenada uu ku soo rogayo iyo nooca ay noqon karaan cunaqabateynta uu rabo ama uu ka damacsan yahay ruushka in uu ku soo rogo haddana wuxuu sheegay in
China iyo India naftooda ay yihiin kuwa sida qatarta ah ama sida weyn u maalgeliya oo sponsor gareeya dagaalka uu Ruushka ku hayo Ukraine sababtoo ah waxay iibsadaan buu yiri gaaska reer Russia gaaskooda ayay si fiican u iibsadaan maadaama ay kulay raqiis ku helaan oo Ruushka Mareykanka saaxiibadiisa ama dawladda Mareykanka ba aysan ka gadanin Ruush wax oil ah wuxuu sheegay in ay labadaas wadanna iyagana naftuuba raac ma aha waxa way buudku kula tuntay sababta wuxuu sheegay inay yihiin kuwa sponsor gareynayo in Ukraine xabadda ay ka socoto oo Ruushka weerarka uu ku socdo ama uu ku sii wado Ukraine ilaa uu Ukraine ka qabsado marka arrinkan wuxuu sheegay waxa ay ka dhigaysaa buu dhahay it's making them look bad amal waxay ka dhigaysaa Ruushkana waxa dagaalkan uu ku jiro way ka caawinaysaa China iyo Indiana waxay ka dhigaysaa buu yiri in ay meeshaas foolxumo ay kala kulmaan inta markuu ka soo gudbay madaxweynaha ayaa isagana sidoo kale labada arrin oo ka hadlay waxay ahaayeen socdaalka migrationka iyo green energy-ga ama climate change-ga waxa loo yaqaano ama isbedelka cimilada labadaas arrin ba aad iyo aad ay wadamada reer galbeedka ah ugu dhaliilay waxaana uu marka hore uu ku hormaray arrinka immigrationka ama socdaalka waxa uu sheegay UN-ta United Nationka qaramada midoobay meeshii loo aasay in arrimaha wadamada ka midka ama memberska ah ama dalalka adduunka in ay u xalliso waxa ay ku caanbaxday buu yiri in ay iyada problem ay u create garayso ama ay u samayso oo u fabrikayso gacanteeda ugu samayso wadamada kale si Mareykanka iyo wadamada waaweyn ay u xalliyaan tusaale ahaan buu yiri wuxuu soo qaatay arrinka dadka socdaalka ku jira migrationka oo uncontrolled ah oo aan la control karin kuwa doomaha ku soo raacay Libya ka soo raacayo wax ka sheegay kuwa Mareykanka xuduudiisa ka soo gudbi jiray wax ka sheegay isaga oo maartay mar uu la hadlayay madaxda dalalka waxa uu u sheegay in wadamadooda ay noqon doonaan wadamo baaba'ay haddii ay wax ka qaban waayaan dadkan iska socda oo habqanka ah ee iska soo galayo arrinka immigrationka ayuu ahaa sidaas la mid ah waxa uu ka hadlay madaxweynaha arrinka ugu dambeeyay oo uu ka hadlay waxay ahayd arrinka climate change-ga ama isbedelka cimilada madaxweynaha dalka Mareykanka ma aaminsana in uu jiro wax la yiraahdo isbedelka cimilada ma aaminsana arrinkaas uu ka soo horjeedaa dalka Mareykankana waxa uu ku amaanay in ay ka baxeen shirkii ka dhacay waagii dhaweyta Paris ka soo baxeen maamulkiisa oo ay qayb qaataan wax ku saabsan arrinkan ayuu waxa uu ku sheegay in uu yahay arrin qalin shubato oo scam ah wuxuu dhahay if you don't get away from this green scam kan haddaad ka bixi weysaan oo qalin shubatadan is urursatay wadamadiina way fail garayn doonaan buu yiri marka madaxweynaha waxa idan halkaas in uusan aaminsanayn waxa la yiraahdo isbedelka cimilada dalka Mareykanka kaliya ma aha hadda isbuucii la soo dhaafay haddii tusaale idin siiyo Mareykanka state-ka ama gobolka California waxa uu ka joojiyay mandate-kii ama shuruudii ahaa in 2030 ama 2035 gaari kasta oo lagu iibinayo gobolka California uu ahaado gaari electric ah oo wax gaariya oo cusub oo gas ah oo gas isticmaalayo inaan lagu gadi karin state-ka California sidaas la mid ah 2030 hadii la gaaro oo inaga xigta kaliya 5 sano in taraagyada aysan soo gali karin dalka Mareykanka aan ka rabaa state-ka ama California hadii aysan wadanin alaabahan dheefka oo kale emissionka waxyaabaha loo yaqaano systemska emissionka hadii ku xirreyn oo dheef uusan ku xirreyn that means gawaarida hore oo aan dheefka lahayn ama DPF filterska lahayn oo taraagyada hore old ahaa ma shaqeynayaan arrinkaas biilkaas daraad ayuu wuxuu ku dilay digreeta madaxweyne oo executive order ayuu ka saxiixay marka waan iska filayay inuu ku soo qaadan doono arrimahan khudbadiisa uu bixinayo oo uu siinayo UN-ta inuu ku soo dari doono arrinkan climate change-ga marka madaxweynaha dalka Mareykanka dalkiisa aad iyo aad buu u amaantay asaga naftiisana amaan afka kaagama horeyso aad buu u soo amaanay in uu xaq u leeyahay in la siiyo bilada nabadgelyada adduunka inkastoo abiba iska qaatay
waa dhaweyto waxaa taa u recommend gareeyey arrinkan ugu dambeeya waxaan u recommend gareeyey dad fara badan oo Netanyahu uu ka mid yahay marka madaxweynaha isaga naftiisa uu soo qaatay arrinkan ugu dambeeya oo aad wada sugayseen oo aan rabo insha Allah taala inaan ku soo qatimo waxa waaye arrinka Falastiin wuu ka hadlay madaxweynaha waxana uu sheegay in uu rabo in Hamas ay sii dayso dadka ay u haysato maxaabiista oo ay u haysato la haystaasha Hamas wuxuu u sheegay sidaaya dadka hala sidaayo dhahay dadka hala sidaayo dadka release the prisoners uu ku soo celceliyay dagaalkana xabadana hala joojiyo ayuu dhowr jeer ku soo celceliyay madaxweynaha maadaama uu yahay nin nabadeed oo uu u qalmo in la siiyo koobka nabadgelyada ama Nobel Peace Prize inuu helo waxa marka arrinka ugu muhiimsan uu yahay shalay waxa ogtihiin in ka badan 150 wadan ay isku raaceen inay aqoonsadaan dawladda Falastiin inay dal noqoto oo arrinkan Israa'iil iyo Falastiin laba state ama laba dal solution in uu loo baahan yahay Faransiiska ayaa waxan arrinkan dabada ka riixay wuxuuna u helay support ama taageero fara badan arrinka isaga marka madaxweynaha dalka Mareykanka wuxuu sheegay waan ka soo horjeedaa buu yiri inta ay yihiinba wadan in ay sameeyaan wax la yiraahdo dawlad Falastiin ah arrinka uu ka soo horjeestay madaxweynaha Palestinian statehood waan ka soo horjeedaa buu yiri waxaana uu sheegay in wadamo saaxiibo la ah dalka Mareykanka gaar ahaan Faransiiska oo aad ugu dhow iyo Portugal iyo wadamadaas Ingiriiska iyo kulli ay isku raacsan yihiin in la aqoonsado Falastiin oo dawlad laga dhigo waxa uu sidoo kale uu sheegay aqoonsigaas la siinayo Falastiin ay garab u noqon doonto oo ay kibir iyo isqaadqaad ka qaadi doonaan Hamas oo uu ku sheegay arrinkan in iyaga guul u tahay aysan guul u ahayn dadka reer Falastiin ee halkaas degan marka arrinkaas waan ka soo horjeedaa buu yiri waxaan rabaa buu yiri in united message ama akhbaar wada dadka dhan ay maartay ama wadamada dhan ay ku kulansan yihiin meesha hadda u raadinaysaan buu yiri in la aqoonsado Falastiin waxa u wada raadisaan in la soo daayo dadka maxaabiista ah oo ka xiran reer Israa'iil dadka ka xiran Hamas inay soo dayso arrinkan kor iyo hoos ha loogu sheego ayuu yiri arrinka ugu dambeeyo oo insha Allah taala tagana waxa waaye waxa uu madaxweynaha khudbadiisii ku soo qatimay arrinka dadka daroogada soo galiyo dalkan Mareykanka usbuucii la soo dhaafay doon waday sida ay xaqiijiyeen coast guard ama ciidamada badda ee dalkan Mareykanka ilaaliya xeebaha badda baa waxay sheegeen in ay gantaal ku dhufteen doon waday daroogo fara badan waxa uu sheegay madaxweynaha waxaan idinka tuuri doonaa uu dhahay qadkan waa idinka saari doonaa gantaalan idinla dhici doonaa haddii aad isku daydaan inaad doomo ku soo qaadaan daroogo aadna keentaan dalkan Mareykanka marka arrinkan isaga uu ka hadlay waxaana uu aad iyo aad ugu nuxnuxsaday in ciidamada militariga dalka Mareykanka ay xaqna u leeyihiin fasaxna ay u haystaan in doonidii ay uga shakiyaan inay balaayadaas xambaarsan tahay oo ay wado ay ku dhuftaan gantaal suudoonaba ha u gaare marka arrinka isaga ah wax sun ah oo dalkeena la soo gelin karo mala ayuu ku soo qatimay madaxweynaha dalka Mareykanka marka khudbadiisii United Nationka oo aan idinku soo koobay 15 daqiiqo gudahooda waa intaas oo qodob ayaa ugu muhiimsanayd intaas ay uga baxaya insha Allah taala haddii videogan uu ku soo gaaro si share gare sidoo kale haddaad nagu cusub tahay subscribe to the channel inaan meel fiican gaarsiinaan rabno hadduu Ilaahay idmo waa idin salaamahayaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh